khaldamay oo aan qalad aan sameeyna macallinkayga ay hor jooga raali gelin ma bixinaya baan idin ka raali gelinaya marka hadalkii raali gelin ka bixinaysa sida ha raali gelin ma ka bixinaya macallinkayga ay hor jooga macallinkaygana ala ayn waraas ma soo dhawow hadal baa baxay xalay aad jeedisay oo aad muxaadaro magaalada Hargeysa ka dhaceysay ka jeedinaysay bal ujeedka hadalkaaga halkii uu ku socday iyo sida uu ahaa bal daawadayaasha tuhunka saar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runaaantii magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Maxamed waxyaabo badan ayaan xalay toole aan ka hadlay oo ciida ka badan oo wax tar leh wax qabad leh laakiin inta la soo qaatay dadku isla dhaxmarayaan waxa uu moodaa dadkii inay yihiin sidii duqsigii meesha xun ku istaagay kolka runaaantii waxa weeyaan had iyo jeer dadka bini aadanka markuu qofku uu faqiih u yahay waxyaabuhu ka hadli karo waxa fiqul waaqac jira iyo arrimaha jira awgeed ayaa kaliftay inaan saa iraahdo taasina waxa weeyaan anu waxaan ahay Axmed ahaan waxaan ahay qofka ugu horeeyay dhiiri geliye guurka oo tababaraan sameeya oo wiilashii hablahan tababaraa oo ku tababaraa inanka sidoo gabadha u dhaqan lahaa inantuna say ninka u dhaqan lahayd ayaan baraa tababaradaasna social media ku jira qofkii doonay uu heli karaa waxyaabahan u dhigo waxa kamid ah inuu ninku noqdo qawaam muxuu ku noqday ninku muxuu qawaam ku noqday bima anfaqu الرجال قوامون على النساء muxuu ku noqday bima anfaqu hadii kala qawaamnimada ninku way dhimanaysaa haduu bima anfaqu hadii laga saaro qawaam ma jirayo waxa weeyaan fiqi waaqac inuu soo noqono guurka la dhiiri geliyo inamada la tababaro tababarkaasna runtii waan jeclahay kaararkii way yaalaan muasasada shul islaamiya ina ka soo qayb gashaan tababarka wiilasha gabdhaha ay qaataan intay meel soo wada fadhiistaan oo dadka tababar la qaato aqoonta la isweydaarsado oo waxyaabo badan la isweydaarsado weeyaan kolka waxa weeyaan inaynu noqono umad iskaashata oo wax wada qabsato wax wada samaysato dhiiri gelino inamadeenna oo kale ku dhiiri gelino camalka boqolkiiba 80 wadanka waa la camal laayahay inamadeenna way wada fadhiya guriga soo dajiraan inoo fadhiya waxa weeyaan sideen ku xalin karnaa waxaan ku xalin karnaa in la shaqeeyo wax la qabsado tababar la sameeyo dadka hadaan la tababarin oo tababar la sameeyno oo dadka aan training la siin waxa inankiina kama korayo inantiina kama korayso kolka waxa weeyaan waxaan ahay Axmed Maxamed waan dhiiri gelinayaa maxay ahaydeen guurka waxaan u istaagayba waan u taaganahay inay wiilashana guursadaan hablahana ay guursadaan laakiin waxa weeyaan asbaabtii iyo sababihii iyo waxyaabihii keenay inaan la nimaadno inaan tababaran inaynu sameeyno saad ogtiin ba labadii qof ee adduunyada ugu horeeyay isdilay Haabil iyo Qaabil markuu walaalkii u dilay wuu garan waayay walaalkiisu yiraahdo la meereysanay muxuu arkay cilmi buu bartay inuu aasay quraafkii uu aasay meedkiisu aasay markaas uu aasay walaalkii kolka cilmi in la barto dadka cilmi aqoon loo yeesho dadka tababar la siiyo ayaan ku dhiirinaya oo arinka imika in ku xalin karnaa adduunyada ma soconayso rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu yiri xalay talna waan ka sheegay famni sadaa minkum albaa'ata waa maxay inuu awoodi karaa ka kalena waa soom inuu soomo kolka waxa weeyaan waxaan ahay anu qofka ugu horeeyay reer Soomaaliland ee dhiiri gelinaya inay inamadu iyo habluhu guursadaan والله runaaantii waan ka hadlay